aan ku bilownay magaalada muqdisho waxaa ka taagan sida la sheegay xiisad ka dhalatay khilaaf cusub oo la sheegayo inuu soo kala dhex galay madaxtooyada Soomaaliya iyo maamulka gobolka Banaadir. Isfaham waagan ayaa la sheegay in labada dhinac ay cirka isku sharartay sida la sheegay toddobaadkan kadib markii madaxweynaha Soomaaliya uu soo saaray amar lagu joojinayo iibinta aan iraahday dhulalka danta guud ee magaalada Muqdisho. Talaabadan oo ay taageerayaasha gudoomiyaha gobolka Banaadirna gaar ahaan odayaasha dhaqankuna ay u fasirteen inay tahay mid la doonayo in cadaadis lagu saaro gudoomiyaha gobolka Banaadir. Haddaba dhinaca kale gudoomiyaha gudoonka golaha shacabka Soomaaliya ayaa go'aan degdeg ah soo saaray sida la sheegay arrintan la xiriirta waxayna sheegeen inay go'aanka gaarista meeqaamka gobolka Banaadir ay tahay awood u gaar ah labada gole ee baarlamaanka Soomaaliya. Arrintaasi odayaasha dhaqankana xalay ay ka hadleen. Haddaba xiisadan la sheegayo in ay ka jirto halkaasi ayaa waryaheena Maxamed Cabdi Sandheere wuxuu ka wareystay Diini Maxamed Diini oo ka mid ah ururada bulshada rayidka ah ee Muqdisho. Annaga aragtida bulshada rayidka aan ka haysano khilaafkan waxaan aaminsanahay inuu yahay khilaaf ka culus mid shakhsiyaad kooban oo iyagu markii hore la isku xaglin jiray sida gudoomiyaha gobolka Banaadir iyo maaragtay madaxweynaha iyo xafiisyada prime ministerka. Waxaan isleeyahay khilaafyo kaloo kasii horeeyay ayaa jiray oo kasoo bilowday shirkii ugu dambeeyey ee maamul goboleedyada. bal haddaad ii faahfaahisid. shirkaas ayaa dood adag ay ka dhacday oo ah in loo ogolaado gobolka Banaadir xuquuqda siyaasiga inuu shirkaas kasoo qayb galo. dood ka bacdina waa loo ogolaaday laakiin cadaadiskii siyaasadeed ee lagu hayay gudoomiyaha gobolka Banaadir ayaa aada u sii xoogeysay ilaa waqtigaas. oo marka waxaad leedahay dawladda ayaan doonayn in arrintaa laga hadlo. dawladdu mowqifka hadda ay qabto waxba kama duwana mowqifkii dawladihii ka horreeyay ay qabeen oo ahaa inaan haba yaraatee laga hadlo. waan gartay laakiin waxyaabo kalaa jiraa laleeyahay oo ah in gudoomiyaha gobolka Banaadir uu marmar qaato go'aamo siyaasadeed oo kasoo horjeeda kii madaxda isaga ka sarreysay ay qaateen. wallahi badanaaba waxyaabaha uu uga duwan yahay gudoomiyaashii hore oo annagana soo maray inta badan wuxuu siiyaa culays saaraa dadku maxay rabaan. dhaqan ahaanna ma soo jirin mana aysan soo marin dadka inta badan reer Muqdisho qof siyaasiya oo gobolka xukuma oo ay ku midaysan yihiin ama aragtidooda ku shaqeeya. waan gartay laakiin lama odhan karo in madaxdii soo martay Soomaaliya laga soo bilaabo 2000 ay kulligood ka soo horjeedeen in dadka reer Muqdisho la dhageysan waayo. kama ay soo horjeedin laakiin way ka cabsan jireen waxay ka bilaasinaayeen ilaa 2000 haba yaraatee inay jid u bixiyaan caasimada. marka culaysku waa isgaargaaray dadkanina rabitaanka ay rabeen waxay ahayd inay xuquuq yeeshaan. waan gartay guddoonka baarlamaanku wuxuu sheegay in arrinta Muqdisho iyo maqaamkeedu ay tahay arrin u taalla amaba uu go'aankeedu leeyahay baarlamaanku. marka miyaadan islahayn gudoomiyaha isagoo kaashanaysa hadii sheegtay qaar ka mid dadka Muqdisho uu ka tallaabsanaya arrintaas. kolley waxay aniga ila tahay gudoomiyaha baarlamaanku malaha waxaa laga yaabaa cadaadis isaga la saaray inuu warqadda kusoo saaray. isagu marnaba markii la sameynayay maamulka Jubbaland baarlamaanku wax talaa kuma lahayn. markii la sameynayay koonfur galbeed wax talaa kuma lahayn. markii maamulada kale galmudug iyo hirshabeelle la sameynayay wax talaa kuma lahayn. waddo sharciya oo loo maray haba yaraatee ma jiro. waan gartay haddiiba ay dhacdo in ismaandhaafka gudoomiyaha gobolka iyo dawladda dhinaca kale waa xafiiska madaxtooyada iyo xafiiska ra'iisul wasaaraha is wata uu ku dhammaado in gudoomiyaha la yidhaahdo xilkii waa lagaa qaaday maxay noqonaysaa tallaabada xigta? wallahi hadda anigu waxaan aaminsanahay waxaan ahay qof muwaadina waxaan ahay qof civil society-ga oo mas-uul ah. waxaan aaminsanahay xil kastoo lagu dhiibo in lagaa qaadi karo laakiin marka aan fiiriyo ama aan qiimeeyo yacni cadaadiska shacbiga haysta magaalada Muqdisho ka jira cabsida aan qabnaa waxay tahay in khilaafku uu sababi karo xitaa in dhaawac weyn soo gaaro dowladnimada iyo qaranimada Soomaaliya. marka cabsida aan qabno annaga mas-uuliyadana saaran waxay ku kooban tahay inaan wax kasta oo shar ah ama yacni keeni kara dhaawac weyn dowladnimada Soomaaliya aan ka hortagno. waan gartay waxa aan ku weydiin lahaa in la yidhi waxaa la qorsheynayay dibadbax maanta ka dhaca Muqdisho
taasna may dhicin arrinta maxaad igaga biirin kartaa wallahi si rasmi ah oo naloo soo gaarsiiyey in mudaharaad dhici lahaa ma jirin laakiin waxaa jirtay inay dhacday dad badan oo abaabulaya mudaharaad maaragtay naloo soo sheegay oo xogaha annaga aan haysano bulshada ku dhex leenaha naloo soo sheegay isla markaasna yacni arrin hay-adaha nabadgelyadu waxay ogaadeen arrimahaas inay dhacayaan aroornimadii saaka ayay waddooyinkii oo dhan xireen waana maqalnay in dad yacni degmooyinka ka shaqeeyay in la xirxiray intay dhan yihiin ma naqaano xitaa dadka qaarkood waxayna soo gaarsiinayaan in la xiray guddoomiyaashii gobolka degmooyinka mid ka mid ah siiba xaafadda Howlwadaag laakiin weli confirmation ma haysto oo rasmi ah